Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada casharka labaad lesson 2. Casharka labaad maanta wuxuu ku saabsan yahay alifbeetada oo xaraf walba oo ka mid a alifbeetada aanu ka bixin doono tusaale erey uu taagan yahay. A for apple. A for apple waxay u taagan tahay tufaax sida sawirka ka muuqata. B for book. B for book waa book. C for cat. C for cat waa yaanyuur ama bisad. D for duck. D for duck waa a. E for egg. E for egg waa ukun. F for fish. F for fish waa kalluun. G for guitar. G for guitar waa kataarka ama muusiga la garaaco. H for hammer. H for hammer waa buris ama dube. I for ink. I for ink waa khad ama inqaas middan wax lagu qoro. J for jack. J for jack waa garaafe ama weelkan biyaha sharaabka ama cabitaanka lagu shubto. K for king. K for king waa boqor. L for leaf. L for leaf waa caleen. M for mouse. M for mouse mouseka waxaa la yidhaahdaa xayawaan sida jiirka oo kale u eg oo wax yar ka yar jiirka wuu ka yar yahay wuu kana sayn gaaban yahay. Jiirka ayaa ka xoog badan kana sayn dheer laakiin sida jiirka oo kale ayuu u dhaqmaa. Guryaha ayuu galaa sida jiirka oo kale. Mouse ayaa la yidhaahdaa keliya uu ka yar yahay jiirka. Sidoo kale mouse waxaa loo yaqaanaa bahashan computerka lagu xukumo ee lagu maamulo. Iyadana waad ujeedaan way isku yar egyihiin oo qaabkeeda iyada ayaa loogu magac daray mouse ayaa la yidhaahdaa iyadana. N for nose. N for nose waa san ama sanka. O for octopus. O for octopus. Octopus waxaa la yidhaahdaa waa xayawaan badda ku jira sida kalluunka oo kale. Waxa ay leedahay 6 faraq ama 6 gamcood. Run ahaantii saddexda xaraf ee magaceeda ugu horeysa oct waxa ay u taagan tahay 8 marka octopus waa xayawaankaasi 8 faraq ama 8 gacmood leh. P for pen. P for pen waa qalin. Q for queen. Q for queen waa boqorad. R for rabbit. R for rabbit waa bakayle. S for snake. S for snake waa mas. T for tree. T for tree. U for umbrella. U for umbrella waa dallad. V for victory. V for victory waa guul. Sawirka sida ka muuqda qof gacmaha kor u taagaya oo guul sheeganaya ayaa ka muuqda. Marka victory waa guul. W for watch. W for watch waa saacad. X for x-ray. X for x-ray. X-ray waxaa la yidhaahdaa mashiinka lafaha lagu sawiro bini'aadamka. Marka korka waxa ka muuqda waa sawirkii mashiinka. Hoosna waxaa ka muuqda sawirkii uu soo saaray oo qof feedhihiisii la sawiray. Marka x-ray waxaa la yidhaahdaa mashiinkaasi lafaha bini'aadamka lagu sawiro. Y for yolk. Y for yolk. Yolk waxaa la yidhaahdaa ukunta qaybteeda jaalaha ah ama qaybta adag oo ku dhex jirta ukunta ee jaalaha midabkeeda yahay ayaa la yidhaahdaa yolk. Z for zebra. Z for zebra waxa weeye dameer farow sida sawirka ka muuqata. Okay,
waxaan doonayaa cashirkani haddii aadan horaan u arag ama aadan si fiican u aqoonin in aad ku celceliso oo aad practice garayso sababtoo ah waxaa la yidhaahdaa practice makes perfect qofka marka uu ku celceliyo waxa uu baranayo markaasi si fiican ayay u dhacdaa oo u bartaa marka waxaan doonayaa inaad practice ku samayso oo aad ku celceliso marka sida aad u practice garayn karta cashirkan waxa weeye waxaad soo qaadanaysaa warqad iyo qalin ama buug iyo qalin kadibna waxaad qoraysaa a for apple ku celceli inta aad awoodo b for book c for cat d for dog e for egg marka waad ku celcelin kartaa markaasi si fiican ayaad u baranaysaa f for fish f for fish g for guitar G for guitar H for hammer I for ink I for ink J for jack J for jack K for king K for king L for leaf u fiirso meeshan waa hal caleen ah oo keliya laakiin caleemo badan sida looga dhigo ama loo qoro wayaan baran doonaa casharada dambe ee soo socda M for mouse M for mouse N for nose N for nose O for octopus O for octopus P for pen P for pen Q for queen Q for queen R for rabbit R for rabbit S for snake S for snake T for tree T for tree U for umbrella umbrella waxaa la yidhahdaa dallada U for umbrella V for victory V for victory
W for watch. W for watch. X for X-ray. X for X-ray. Y for yolk. Y for yolk. Marka haddaad dhihi rabto ukunta qaybteeda jaalaha ah waxaad dhihi kartaa egg yolk. Egg yolk waa ukunta qaybta jaalaha ah. Z for zebra. Z for zebra. Z for zebra. Listen to exercise. Listen to exercise. Exercise waxa weeye macnihiisa layli. Layli. Erayaasha ingiriiska mararka qaarkood hal eray ayaa wuxuu yeelan karaa hal macno ka badan. Ereygani exercise waxa uu ka mid yahay ereyadaasi. Macno kale ayuu yeelan karaa oo waxa weeye jimicsi ama waxyaabaha la sameeyo si qofka caafimaadkiisa uu si wanaagsanaado. Laakiin hadda meeshan sida uu ugu jiro waxaa laga wadaa layli ama shaqada ardayga loo diro oo uu ka shaqeeyo. Marka exercise ereygani higaadiisa ama qoraalkiisa mararka qaarkood uu dhib badan yahay. Haddii ay kula noqoto higaadiisa inay kugu adkaato waxaad ku xasuusan kartaa ereyga adigoo si af Soomaali ahaan oo kale u akhriya oo yiraahda exer ciise. Marka exer ciise haddii aad qorto exercise ayaad higaadisay. Marka sidaas ayaa lagu xasuustaa exercise layli. Su-aasha waxa weeye ama tilmaanta fill the blanks. Fill the blanks meelaha bannaan buuxi. Fill the blanks meelaha bannaan buuxi. Meelaha bannaan buuxi. Marka waxaan kugu dhiirigelinayaa marka hore in aad 4 page weeye 40 page mid walba inta aad joojiso marka uu kuu soo baxo oo aad qorto kadibna videoga aad joojiso ka shaqee. Marka aad ka shaqayso hadhow su'aalahaada sida aad uga jawaabtay iyo sida marka dambe aan uga jawaabi doono ayaad isbarbar dhigaysaa. Marka sidaas yeel. A for apple. A for apple waxaa ka maqan B. B for book. B for book waxaa ka maqan double O. C for cat. C for cat waxaa ka maqan A. D for dog. D for dog waxaa ka maqan O. E for egg. E for egg waxaa ka maqan G kale. E for egg. F for fish. F for fish waxaa ka maqan I. G for guitar. G for guitar waxaa ka maqan T. H for hammer. H for hammer waxaa ka maqan M. I for ink. I for ink waxaa ka maqan N. J for jack. J for jack waxaa ka maqan U. K for king. K for king waxaa ka maqan N. L for leaf. L for leaf waxaa ka maqan A. M for mouse. M for mouse waxaa ka maqan S. N for nose. N for nose waxaa ka maqan O. O for octopus. O
for octopus waxaa ka maqan t. P for pen. P for pen waxaa ka maqan e. Q for queen. Q for queen waxaa ka maqan double e. R for rabbit. R for rabbit waxaa ka maqan I. S for snake. S for snake waxaa ka maqan n. T for tree. T for tree waxaa ka maqan e. U for umbrella waxaa ka maqan l kale. U for umbrella. V for victory. V for victory waxaa ka maqan t. W for watch. W for watch waxaa ka maqan t. X for x-ray. X for x-ray waxaa ka maqan y. Y for yolk. Y for yolk waxaa ka maqan l. Z for zebra. Z for zebra waxaa ka maqan e. intaasna waxaa inoogu eg exercisekii lesson 2 sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta aynu ku kulmi doono casharka saddexaad